calanka babanayo ciidsiga sugaya calanka babanayo ciidsiga sugaya caladan ku noolay codsigiiga soo diray. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. saaxiibayaal sokeeye asxaabta sharafta leh meel kastoo adduunka ka joogtaan, maalin wanaagsan, habeen wanaagsan, subax wanaagsan, galab wanaagsan, wada wanaagsan. waan salaamay dhammaantiin. maxay ahayd waxaa waaye nasteexo samafale oo maanta ka soo salaamaysa jika ku taala guri aan ka deganahay Turkiya magaalada Ankara. waxaan marka idin leeyahay saaxiibayaal waan salaamay. haddaan soo dhawaado I'm sorry maanta ookiyaal ma qabo because gurigaan ku dhex jira. markaan ookiyaalaha qabo markaan dibadaha iyo qorraxda iyo markaas leeyahay, inkastoo aan jeclahay markaas ookiyaalaha waa my favorite waaye, waxa waaye waa jeclahay ookiyaalaha. marka waan salaamo saaxiibayaal. waxaan rabaa maanta hooyooyinka Soomaaliyeed mawduucay wuxuu ku saabsan yahay hooyooyinka Soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaan adduunka dacaladiisa dibad iyo gudo meel kastoo aad joogtaan. hooyo kastoo Soomaaliyeed ay ugu horeyso hooyaday Maryam, ay ugu horeyso Maryam Xirsi Khayre. waan salaamayaa hooyaday, waan u ducaynayaa ilaahay jannadii ha geeyo, aabahana ilaahay jannadii ha geeyo. hooyooyinka Soomaaliyeed special hooyooyinka adduunka oo dhan special hooyooyinka Soomaaliyeed waxaan leeyahay hooyo aniguna aan ku jiro I love you, I love you. why hooyo horta markii la raacayta hooyo nabigeena calayhi salaatu wasalaam diintu way ku xustay waxa la hooyo 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 aabe marka afraad baa ka soo galaya. walow aan aabahayna jeclahay ilaahay ha u naxariisto, laakiin hooyaday ifkay taagan tahay ilaahay jannadii ha geeyo. hadday dhimato hadday nooshahana ilaahay waxaan ka baryay inay ku noolaato naxariis nolol maxay ahayd toy wax kasta everything. I hope all Somali women, mother, mom in all the world, especially hooyooyinka Soomaaliyeed ilaahay jannada ha geeyo. waxaan rabaa marka hooyaday ama hooyo oo dhan hees hadda hore waqtigii inaan wax yar ka sheego. gaaridii idihataay geenyada shixnadanay guri nabadi taallay gaajada ma yeesho gaadmada isheedii garashada xasuuskeed. gaaridii idihataay geenyada shixnadanay guri nabadi taallay goobey gaajada ma yeesho gaadmada isheedii garashada xasuuskeed goobey. hooyada waa midda ku garata haddaad gaabsoon tahay, haddii lagu soo dilay, haddii wax si kaa yihiin way ku eegaysaa, waxay ku leedahay what happened, way garanaysaa waxa ku haya. all mother saas u wayno all mother. waxaan rabaa inaan hooyo Soomaaliyeed la ilaahdo ilaahay waxaan ka baryay hooyo kasta in jannada guri looga dhiso, waayo way mutaysatay. waxaad arkaysaa 95% waxa ilmaha koriya waa hooyo. waayihii dambe oo dagaaladu dhaceen because waayihii hore odayaashu aabayaasha shaqayn jiray, shaqooyin bay jirtay. hadda ruuxdu way isku dayeen inay shaqeeyaan, laakiin shaqadii raggu meesha way ka baxday. mid dawladdaas oo wax ka ah ama mid dibadaha soo aaday maahan oo ilaahay uga baqa carruurtiisa xaaskiisa maahan. waxa waaye shaqooyinkii ragga 80% meesha way ka baxday. Soomaaliya markaan ka hadlo hooyo Soomaaliyeed baa korinaysa ilmaheeda, mid jaad gada iyo mid sonkor gada iyo mid caana gada iyo mid qara jeexjeexda. hooyo waxaan leeyahay hooyo Soomaaliyeed hooyada macaani anigu baan ku jiray jannadii fardowso ilaahay hooyo kasta guriga uga dhiso.
waxa igu kiciya arrintaas marka heesti wax yar oo hoorsaar inaan ku soo daro waxaan ku yiri intaad ii gasho badan amaalka ma gudaye markaad geeriyoto godka ilka lagu dhiga allow jannadii ku gey waa heesta hooyal dhaha qofkii raba youtube ka fiirsado gobay baa heesta la yiraahdaa gobay hooyoy gobay gobay hooyoy gobay gob waxaa la yiraahdaa nacam dadka waagi hore wax bay u isticmaashaa macno lahayn laakiin gob waxaa la yiraahdaa qofka meel kasta ka dhamaystiran waa hooyo hooyo waa ka dhamaystiran tahay wax kasta dumarka Soomaaliyeed waxay sii dheeryihiin ya nin aan naag wanaagsan qabin ragga kama fiicnaado waa nin jaban kabto weeyaan hooyo Soomaaliyeed waxay isku dayaysaa macal aabaha inay dhisto inay ilmaha dhisto saliid marmariso subaxii oday dharkiisa feerayso gurigii xaaqdo hooyo ilaahow jannadii ku gee adduunka aakhirka wada jannadii ku gee mid ugu wanaagsan ku gee adduunka wax alla waxaad rabto inaad hesho waxa weeye horta waxa li xaq alla ku fadhiya kana kac ragii soo markay isbaabasheen ya hooyooyinkii baa carruurtii koriyay hooyooyinkii baa nin reerkii gabar u soo dhoofto waxaa la yiraahdaa wuxuu helaa wax fiican walow hadda rag u soo dhoofana ay jiraan walaalkay waxa ku jireen annaga familkayga intaas oo qof ayaa jirta 60-70 waa dhihi karaa maca carruurteena inta dibadaha jirta ingiriiska maxay ahayd America Sweden baan u badanahay waxaa loogu soo horeeyay wiil baa loogu soo horeeyay wiilkaas anigu soo galiyay anuguna intii kale hal qof uu jira oo ninkiisu soo gashay uu jira oo nugu jira ama gabar ninkii soo gashay waa nugu jirtaa laakiin inta kale waxaa laga yaabaa inaan saameyn ku lahaa 60 qodobadkaas qof marka barnaamijka maanta wuxuu ku saabsan yahay hooyo waxa igu kiciyay dad wax ma garataa ragga inta wanaagsan boqolkiiba inta yihiin ma aqaan oo ama carruurtooda korsada ama naagtooda sharfa iyara waa ka fogay ama naagtooda sharfa ama carruurtooda sharfa ama ilmahooda korsada waxaan leeyahay good for you thank you ilaahay markaday ama gabdhaha garanaya hooyo waxay tahay ama dumarku wax u yahay garanaya kuwa aan garanin oo single motherada carruuraha looga tago markay is soo saaraan oo naftooda horumariyaan oo shaqaystaan oo ilmahooda korsadaan oo ay beautiful ku soo baxaan girl naftooda intay ka shaqaysiyaan oo naftooda u raaxeeyaan beautiful girl noqda waxaa jira ku xun rag xun baa jira ay sameynayaan single mother markaas waxay sameynayaan hadhow waxa ay u kiciyay naagaha aan waxba fahmayn oo la isku soo diray nina wuxuu leeyahay listen naagtaas dhageyso waa nimcahay naagtaas dhageyso waa naagu og yahay inay wax fahamtay dhageyso maxay ka dhageysataa midaas naag hadduu arko maasha allah wuxuu leeyahay islaantaas maxaad ka fahmay waa wax kale intay soo gelin waxay ku leeyihiin cajuuso hadday gurigaa kusoo taxdo waa laga cawdi bilaystaa oo asagu cajuus yaa shaydaan hadday jiraan waxaa la yidhi dumarku cadow aan ragga ahayna male nolol aan ragga ahayna male laakiin waa been gabadhu nolol waa samaysan kartaa laakiin ragga fiican madaxa isaartay oo garanaya hooyo waxay tahay gabari waxay tahay waayo hooyo waa tii soo jaqsiisan naaska korka soo gelisay guradaada dhabarkiiyo gaadaha isaartoo godol aan ka nuugay
markii duul is wada galay gantaaruhu isdhaafeen waa dagaaladii tii ila gudaysay soo gurguuradkaygiyo saanta gabi dhacay waa marka kufkufay oo yarka ah gacantaadii qabatay gobey saasay gacanta ii qabatay dadah hooyo waa tii abaaruhu markay dhaceen qofkii xasuustow kii agoon lagu soo kariyowna dib u xasuuso kii hooyada inta laga tegay ayadu hooyo keligeedii soo korsatayow ogow haddaadse isku daydaan dumarka inay xaqirtaan no we know ilmuhuna way ogyihiin waxaa jirta gabdho yaryaroo hadda kahor la sheekaysto waxay ku dhaheen nin Soomaaliyeed guursan mayna dhaheen waay annaga aabaheen waa naga tegay hooyada baan soo guursan waxaan aragnaa hooyooyinka kale iyo dadka kaleeto oo ilmihii looga tegay nin Soomaaliyeed ma guursanayn waxaan kaloo arkay gabdhuhu markay nin ajnabiga guursadaan kuwa ka sheekeynaya hadba soo dhigaya daya nin waxay guursatay nin ajnabiya nyaw she's free ajnabi guursanaysaa caddaan bay guursanaysaa madow bay guursanaysaa exactly ninku laakiin waa muslim ahaada waayo gabadha muslimada wey waxaan kula talinayaa nin muslim haddaan heshaan guursada walaalihiinna kolley rag iyo dumar ilaahay baa isku beeray aadan xaawo feertiisaa looga abuuray aadan iyo xaawo waxay dhaleen qaabiil iyo haabiil labadii gabdhood magacooda lama sheego nin walba gabar baa ku mataansanay ayagaa mid walba gabar loogu mataan say u guursadaan nin walba gabadha kale ninka kale mataankiisa u guursado rag waa kuwii isdilay qaabiil iyo haabiil baa isdilay marka gabdha Soomaaliyeed waan la talinayaa ragga Soomaaliyeed waan la talinayaa gabdhaha Soomaaliyeed I am happy for you. You must happy for yourself. Grow up. Thank you boy. Naftaada iyo noloshaada. walaalka ku jecelna dhaqaalayso ama odayaaga ahaado ama walaalka ahaado ama wiilkaaga ahaado ama saaxiib qataqana ahaado ama Soomaali ama ajnabi ahaado walaalka ku yaqaan oo ku ilaashanaya ilaasho kiyaan ilaashanayso Soomaali go on tana ma ayso waan ogahay ilaahay hadda isku xirto toban haddii laga tago waad korsan kartaa you can just you can yes you can I love you all mother in the world especially Somali hooyooyinka I love my mother I love myself I love inta jecel inta soo dhawaysa inta iraada naseexa samad falaay gabadha wadankaay qof fiican baata inta iraada I love you all my friends bye Godey hoy hoy godey